بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada Somcoders waa aniga waa Xadfta Cabdilaahi qaybtan waxaan ku qaadan doonaa loobiska waxay yihiin loobisku waa inaad xog soo celisid hal mar iyo wixii ka badan inta badan luqadaha programmingku waa iskaga mid dhanka loobiska waxaana isticmaalaan while loobiska for loobiska iyo do while-ka intaas mar walba way ka siman yihiin waxaana inta badan maqlaysaa ereyga la dhaho iteration oo ah soo noqnoqod waa marka data ama xog la soo celiyo hal mar wax ka badan soo waxaanu ku horeynaynaa while loobiska kabacdi do while-ka iyo while loop waxay ku kala duwan yihiin kabacdi waxaanu gelinaa for loobiska okay while loopka hore ayaynu qayb ka mid uga soo aragnay kaliya waxay hubinaysaa haddii conditionkaasi ay noqoto sax ama true waxa ku dhex jira block of codekaas uu soo celinayaa ilaa aad ka xidhid oo aad gelisid break soo haddaynu tusaale ahaan dhahno while false halkaa ka dhigno waxayna caawinaysaa casharadeenna hore waxaynu kusoo qaadanay truthy or falsy sidaa darteed waxaad kala taqaanaa wax walba false ah iyo wax walba true ah waxaynu dhahna console.log working qoraalkan ku dhex jira block keliya wuxuu shaqaynayaa while conditionkaasi ay noqoto ama xaaladaasi ay noqoto true soo haddaynu dhahno run waxba soo bixi maayaa soo haddaynu halkan ka dhigno true aynu ka dhigno wuu shaqaynayaa laakiin loopkeenaas wuxuu noqonayaa wax la dhaho infinite loop ama soo noqnoqosho weligeed iska soconaysaa waxaan laga yaabaa environmentga ku shaqaynaysid inay u geysato cillado ama jam computerka u galo soo mar walba oo conditionka aadan u samayn meelay ku istaagto waana isticmaashaa break marka waxay ka caawinaysaa conditionka marka ugu horeysa shaqayso inay barteeda ku xidho oo aysan noqon infinite ama mid iska soconaysa soo haddaan run dhahno working ayaa soo baxay nice haddaynu halkan while false ka dhigno waa ujeedaa inaysan waxba soo baxay okay sidee baynu xog soo celcelin karnaa haddaba haddaynu rabno tiro 1 ilaa 5 inaynu soo celcelino waxaa laga yaabaa inaynu dhihi lahayn console.log 1 haddana 2 ama 3 ama 4 si aynu taa uga hortagno waxaan isticmaalnaa loop soo waxaan leenahay while halkan aynu ka samaysanaa variable waxaan leenahay let number waxa u asan garaysa 0 u asan gare kabacdi waxaan leenahay while numberkaasi uu ka yar yahay 5 numberkaas mar walba n plus oo n plus waa maxay waa n plus 1 n u asan gare n plus 1 soo haddaynu dhahno run working kaliya soo baxay sababtoo break ayaynu gelinay breaktan comment ayaynu ka dhignaa sababta haddii comment uga dhigna waxa weeye conditionkeennii waxaynu u samaynay meelay ku istaagto oo ah halka ay ka yar tahay intaasi ama numberkaasi uu 5 ka yar yahay soo haddaynu hadda rangarayno 5 jeer ayay soo baxaysaa working marka meeshan workingka waxaynu ku bedelan karnaa numberkeennii aynu leenahay u yeedh numberka soo haddaynu eegno waxaa soo baxay 1 ilaa 5 waayahay inta badan waxaad arkaysaa marka loobiska la isticmaalayo for loop ama while ay baa loo qaataa ama j marka wax iska standard ah xarafka doontid waa u qaadan kartaa marka qaarkood waxaad rabtaa inaad soo saartid tusaale ahaan nambaro 15 ama dhaban ah soo halkan waxaad dhihi kartaa n plus equal to haddaan dhahno maxaa soo baxaya waxay la micno tahay adoo dhahaa waa n waasan garee n plus 2 n plus waxay ahayd n waasan garee n plus 1 waaye halka haddaad doonto 3 ayaa gelin kartaa 3 ayuu boodayaa soo conditionku see u hubinaysaa markuu hoose n buu eegayaa laba u qaatay laba ma ka yartahay 5 waa sax kii ku xiga u gudbayaa 4 ma ka yartahay 5 waa sax sidaas la mid ah waxaad isticmaali kartaa plus kaliya ma isticmaali kartid waxaad isticmaali kartaa minus oo tusaale ahaan tiradu markaad doonaysa inay kor u socoto oo meel ku joogto okay waxaa yimi do while wax kale maaha while-keennii aanu dhahna while conditionkaasi ay la mid tahay true ama false ayaa xagga sare do kaga soo daraysa waxaad leedahay do kabacdi block of code kabacdi while soo inta kaliya do while-ka lagu sheegay waa intaas kaliya ayuu u baahan yahay soo halkan ay u yeedhaysaa console.log working tusaale ahaan ayaynu iska gashanaa in waxaas ina shaqaynayaan iyo in kale okay soo haddaynu randhahno working ayaa kusoo baxday soo halka maxaa ka fahmaysaa
haddaynu halkan dhahno false waxba ma soo baxayaan while loopka marka la joogo oo conditionka marka ugu horeysa xagga hore ayuu ka hubinayaa laakiin do while-ku at least hal mar ayuu shaqaynayaa kabacdi markaas uu istaagaya conditionku so haddaynu halkan la dhahno true hala mid ahaato waa inaynu break gelinaa suusan inooga noqon infinite loop kabacdina workingkii sidii ayay usoo baxaysa waayahay marka halka waxaa ka fahantay do while-ku inuu hal mar xaaladda ugu yaraan hal mar uu hubinayo sidaas si lamid ah haddaynu rabno inaynu xogteena soo celino waa inaynu dhahnaa while halkan waxay ahayd while ay n ay ka yartahay 5 bay ahayd halkan waxaa leenahay while n ay ka yartahay 5 marka intan xagga sare lagu soo asangareeyay waxa laga yaabaa inay soo istaagtayba marka waa inaynu samaysanaa mid kale intiina waxaan leenahay n1 plus soo haddaynu rangarayno kan wuu shaqeeyey weliba plus iska isticmaalaynaa si ay u fahantaan kan kow ilaa 5 wuu shaqeeyey kana working ayaa ku qoran halkan workingka waxaan ku bedelanaa n1 soo waxaa soo baxaysa 1 sababta kow soo baxday waxa weeye break lane ayaa ku jira maadaama aynu xaaladii halkan aynu 5 aysan dhaafin uma baahnin break lane uma baahnin sidaa darteed waa kow ilaa 5 haddana iyo kow ilaa 5 marka waxaas kuu soo baxayana waa same